bismillaah assalaamu calaykum walaalay qaaligan jecla waa idin wada salaam meel kasta adduunka joogtaan waxaan rajeynaa inay caafimaad qabtaan waa walaashiin ee markale muuqaal cusub haddii ay tahay markii ugu horeysa janaalka soo booqtay sabskraib inoo saar insha allah waana kaaga mahadcelinaya joogistaada quruxda badan asxaabta cusub waxaan idin leeyahay gacan furan kusoo dhawaada muuqaalka hordhiciisa kusoo aragteen waxaa inoo wada cun iclaanjiya cun ayaa inoo wada oo fudud oo kaaliska arag halkan baaquli ayaan soo qaatay waxaan soo cabirinaya waxay tahay waa burkii waxaan ku shubi doonaa insha allah koobkaas yarka haystaa ujeedaan soo 3 koob ayaan kusoo shubanaa oo bur kadibna waxaa halkan kusoo shiita ayadana sokorta shiidan waa isticmaali kartaa oo diyaarsan haddii aysan markaasna ku olin waxaa shiidan kartaa sokortaada soo sokor aan soo shiitay oo aniga aan soo shiito mashiinka aan kusoo shiiday oo 1 koob sokor 3 koob oo bur soo markasta koobkaas la isticmaala insha allah soo sokorta shiidanna waatana waa haystaa ayadana sidoo kale haaf ayaan ka isticmaali doonaa bakeeriga haafkiisa soo waan idinkugu celinaa insha allah waa 3 koob oo bur 1 koob iyo bar oo sokor 1 koob waxaan kasoo dhigtay sokor aniga soo shiitay haafka kalena waxaan kasoo dhigay sokorta diyaarsan insha allah soo intaas qallalan ayaan si fiican isku soo dhexgelinaa lagama sheekeyn karo aad iyo aad ayuu u fudud yahay haddii ay ku dhibi jirtay maanta kadib insha allah kuma dhibaysa muuqaalkan haddii uu kusoo gaaray cunka waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysataan soo meeshan waxaan kusoo shubtay oo kaleeto waa heel yar oo aan soo tumay si fiican usoo daqiiq aan kasoo dhigay heelka waa muhiim mid yani shiidan inaad haysataa haddii aadan haysanin si fiican usoo jejebi waayo heelka caraf gooni ayuu u sameynaa oo inaba aan caadi ahayn soo bakeeriga aan kusoo cabiray oo saliid aan haddana soo qaatay marka bakeerigaas oo saliid ayaan isticmaali doonaa insha allah kaaliska arag gacanta ayaan soo dhaqday waan xashaa sida cajiinka camal ayaan xashi doonaa insha allah kadib ilaa aad ka hesho bur isla eg yani oo kuu qabsamayo kuu kusma intaa ka hesho si fiican isku dhexgeli burka qaleel kaa noqonin saliidan saaid kaaga badanin soo qiyaasta gacantaada markasta ku hay kaskas ugu darso saas ayaan u kuskuusa oo wambaroobeynaya in la kuskuusi karo iyo in kaleeto maasha allah tabaarakallah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaan insha allah aad iyo aad ayuu u fudud yahay soo haddii aad iyo aad ayuu u fudud yahay qof kasta waxaa dadka qaar dhib ayay ku noqonaysaa laakiin muhiimadda waxaa waaye in aad baroobeysa isku daydaa yani waa dhiirigelin naftaada ku adigna aad yani hadhow faa'iido aad ku helayso weliga shay aadan hore u sameynin lagama cabsado okay qofkan muxuu sameeyey waxaasuu sameeyey anigana waa sameyn karaa waa inaad isku daydaa waa sameyn kartaa maasha allah tabaarakallah waa muhiim inuu qofku wax isku dayaa soo markaas ay miro dhalkiisa helaysaa laa baasa dhib ma laha haddii ay maalin ka halaawdo maalinka labaad ayay ku toosaysaa maalinka labaad haddii ka halaawdo maalinka saddexaad ayay ku toosaa weligaa hana jabin weligaa waxa aad sameyn doonto ama waxa aad sameynayso lagama cabsado waa lagu dhaqaaqa haddii ay ka halaabaan dee wax kasta way halaabaan mafaata bili aadan leeyahay wax waa ka halaabaan waa kaa qaldamaya ma qaldam ilaahay waa insha allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaan soo muuqaalka hore aan soo gelinayo oo ilmaha cuntadooyinkooda ku saabsan gabdho badan oo walaalaha ayaa ka helay maasha allah tabaarakallah waxaan rajeynaya caruuradeen inay idin caafimaad qabaan ilmaha cuntadiidka insha allah waxaa waaye waa lagu dhib qabaa ilmaha cuntadiidka aniga xitaa wiilkayga weynka saas waaye laakiin waxaan sameeyaa cuntooyinka alle leeyahay isleeyahay asaga ayaa ka helaya ama wuu ka helaa ayaan siiyaa oo waxaan waa u farsameeyaa sida qudaartoo kaleeto waa ugu dhex qariyaa cuntada u shiidaa waa u duwaa marmarka qaar intaad shiido cuntada u farsamey u dub hooyo waxaa waa basar leh waayo anaga dhan basar socdo soo cunugaaga meeshan haddii uu ka diiday inuu wax ku isticmaalo qaybta kale ayaa laga siiyaa sida aniga ahaan wiilkayga baradhada aad iyo aad ayuu u necab yahay baradhada ma jeclo soo marka waxaa sameeyaa baradhada cuntooyinka oo ku dhex kariyaa waa yani waa ku dhex qariyaa ma fahmaya markaasoo kaleto iskala khalqaa marka haddana lama dhaho yani cunugan wuu necib yahay ma jeclo cuntadan lagama wada jiro waayo haddaa kasii wada jirto wuu iloobaa waxaa la sameeyaa maalinaa lagu dayaa maalin kaleetaa lagu dayaa hal maalin hadda waxay riiska dhidhimi maalinka saddexda asoo cunaya arkaysa insha allah soo muuqaaladaasoo kaleeto waa soo badan doonaa ilmaha cuntooyinkooda ku saabsan saxankii koowaad markii aan kuskuus kusoo dhameeyay wari aan ku daadinay ayaa waxaan soo qaatay geedka dhagaa lagu sifeeyay oo nadiif maasha allah san waxa rinjiga guduudan ayaan soo qastay dhaxda ayaan dhibic u sameynaa insha allah kadibna foornadeena ayaan soo shidanay waxa u geeyay
laba boqol oo ayaan u geeyey foornada saaid ayay kaaga kulaanin kadibna insha allah 15 daqiiqo ayaan sugi doonaa dabka saaid ma kulno kor iyo hoos ayaan usoo shiday soo saxanka labaad ayaan sameyn doonaa insha allah aad iyo aad ayuu u fudud yahay hal saxan iyo haaf ayuu noqonaa intaas markaa sameynayso haddii aad family weyn tihidiinna waa ka badsan kartaan insha allah laakiin ani ahaan halahan ayaan soo samaystay kan waa kala dhaqaajiye waaye hal saxan iyo haaf ayuu noqday xoogaa saxanka soo igu deeqo waan kala dejiyey marka hadda waxaan sameyn doonaa insha allah asagan rinjiga oo cagaaran ayaan haddana dhexda ka saaraa waayo laba kalar oo qurux badan ayuu kusoo baxaa maasha allah tabaaraka allah laga sheekey karin ciidaha oo kaleeto gurigaaga inay waxyaabaha macmacaanka yaalaan oo kaleeto aad iyo aad ay u fudud u fiican tahay marka qof marti ku imaanayso maasha allah tabaaraka allah lagama sheekeyn karo sidaas quruxda badan kalarkaas yar weli waa cad yahay kalar yar oo qaxwo ayaa soo galay aad ayuu kaaga guduudan aad hadda u guduuto yacni ma fiicno ma fahanteen soo kalarka inuu xoogaa yar cad yahay ayuu ku qurux badan yahay cunug ahaan soo saxankii labaad ayaan soo gelinay maasha allah tabaaraka allah lagama sheekeyn karo wallaahi waxaa rajeynaa inaa ka faa'iidaan soo saxankeeni labaad ayaan soo gelinay hadda foornada waxaa waaye saxanka xoogaa wuu niniikina yacni waxaa balaaska ma aqaana saxanka si fiican uma fadhiisanayso wuu ku celcelinayay maasha allah tabaaraka allah saxankeeni waa noo soo baxay marka ugu horeysa aad saxanka kasoo bixiso oo banaanka aad soo dhigto wuxuu u baahan yahay inuu aad iyo aad u qaboobo waayo hataaban haddii kale wuu kaa burburaa markuu si fiican u qaboobo ayaa la cuni karaa ama la fiirin karaa soo hadda waxaan soo qaatay geedka sayr aad soo qaatay fiir kor iyo hoos wuxuu ka noqday maasha allah tabaaraka allah sidaas quruxda badan ayaa noogu soo baxay lagama sheekeyn karo maasha allah tabaaraka allah soo saxankan ayaan soo qaatay geedkan yare baaquliga camal ayaan soo qaatay halkaas ayaan kusoo gurayaa gurigaaga waa muhiim inuu ku yaalaan mamarka qaar waxyaabaha mamacaanka buskudka iyo cunka waayo qof martii ku socda ku imaan kartaa waa meesha ugu fudud oo hadhow uga soo baxsan karto cafwan haddii codkayga si kale tahay weli codka xiran hergebka adduunka yaa ayaa weli ahaayo walaahi ma garanayo hergeb ma la dhihi karo kan waa sun waa wallaahi marka halkaas ayaan kusoo guranaynaa maasha allah tabaaraka allah lagama sheekeyn karo muuqaalka haddii uu kusoo gaaro xaqisisi insha allah waxaan idin leeyahay muuqaalka xigo kheyr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqa ayaan idin rajeynaa muuqaalada sidan camal hadday aad kasoo heshaan insha allah soo badiya dhaha waxaan soo geli doonaa buskudka kale sida loo sameeyo waan soo geli doonaa insha allah haddii aad ka heshaan muuqaalka laagta inoo siiya insha allah waana mahadsantihiin waan idinkaga mahadcelinaa markasta iyo goor kastaba